runtii maalmahan waa kala maqnayn wax kale laguma kala maqnayne waxay ahayd dardargelinta doorashooyinka iyo habraacidoodii maaliyadda qondada haweenka iyo dhammaan waxyaabihii soo hoos tagay saad la socotaan 17 September ayaa dhammaanteen ku taaganahay doorashadana ay ku taagan tahay wax kastana waxay ku caddaayeen 17 September oo muddo dheer loo soo maray sidii doorasho dalkan uu gali lahaa haddii ahaan lahayd mid toos ah iyo mid dadban kadibna lagu wada heshiiyey in la qaato mid dadbaneed oo ku beesgareysneed 2016 laakiin wax yar laga casriyeeyo laakiin originkeeda ama beeskeeda uu ka yimid in la raaco midii 2016 sidaas ayaa lagu heshiiyey waxyaabo ayaa iska bedelay oo ay ka mid yihiin labada degmo oo gobol kasta oo doorasho ay ka dhacayso dowlad goboleed kasta ay ka dhacayso doorashada oo laba degmo ah ergadii oo 51 ahayd oo laga dhigay 101 101gaasna ay soo xolayaan odayaasha dhaqanka duubabka iyo ururada bulshada ee isla jufadaas meeshaas ay ku caddahay waxa kaliya oo laga saxay habraaci u dambeeyay 24 bishii maanta ugu dambeysay August cidda soo xulayso odayaasheeda iyo duubabka iyo ururada bulshada yaa hubinayo hubintii awal dowlad goboleedka miyaa hubinayo ra-iisul wasaare Roble hubinayo ma cid kale hubinayso ma dowladda shisheeya hubinayo waxa loo baahday cidda hubinaysa in la ogaado saa darteed maadaama ay tahay wax hoose oo jufadaas leedahay waxaa la isku raacay in dowlad goboleedka laga saaro Roble laga saaro oo loo dhiibo guddigaas oo doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo sidka ah shacabka waxa laga yaabaa inay ku wareereen ama aysan fahmin ergooyinkaas waxaan rabaa halkan in idin kaga cadeeyo musharaxa beeshaas beesha waxa laga yaabaa inay leedahay 3 kursi tusaale haddaan usoo qaato kursigaas ka mid ah kursiyadaas aan u bixiyo reer qurac reer quracaas kursigaas waxaa dooranaya 101 qof oo beeshaas reer qurac ah soo maaha yaa soo xulaya marka 101daas oo beesha reer qurac waxaa soo xulaya duubabka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee beeshaas hoose ee kursigaas kale ee reer qurac ama beelahaas isku tagay ee reer qurac ee kursigaas uu ka dhaxeeyo ayaa iska leh waxaana hubinayo inay odayaashaas iyo duubabkaas iyo bulshada rayidka ee beeshaas waa siidka saa idiin sheegay markii reer qurac laga soo tago oo kursigaas reer qurac uu baxo waxaa la imaanayaa reer qansax soo maaha oo isla jufadii ah jufadaas hoose ee reer qansax kursigaas sidoo kale isagana waxaa 101deeda kursiga lagu tartamaya 101deeda waxay ka imaanaysaa oo soo xulaya jufadaas hoose ee reer qurac ee odayaasheeda duubabka ah dhaqanka iyo bulshadeeda rayidka marka waa casriyeyntii ama udaadejintii doorashada ee hoos awal waxay ku ekeed hal oday ayaa mas'uul ahaa soo mahan 2016 laakiin odaygaas hadda wuxuu hoos tagayaa beeshiisii reer qurac ama reer qansax ayuu toos u hoos tagayaa marka hooshii beeshii ayaa mas'uuliyaddeeda loo ballaariyo iyada u madax bannaan inay ergadeeda doorato xildhibaankeeda soo baxayna ay meesha ku tartamaan iyada ay doorato cid ku faragelinaysa malaha bulshada rayidka ku soo hartay bulshada rayidka ee reer qansax way ka duwan tahay bulshada rayidka ee reer qurac reer kasto ama jufo kasta oo hoose bulshadeeda rayidka iyaga iska leh yaa waa bulshada rayidka waa
mid ka mid ah culamaa u diinka, mid ka mid qof ka mid ah haweenka, qof ka mid ah dhalinyarada sportiska, bulshadaas rayidka ee kala duwan xaq ayay u leeyihiin beeshaas ama jufadaas hoose ee reer Qansax ama reer Qurac bulshadeeda rayidka inay ka mid noqoto dadka soo xulaya 101 qofood. markasta waxaa xasuusta maskaxda ku dartaan in qoondada haweenka ay lama taabtaan tahay. meeqan ku heshiinay 30%. dhammaantiin haddaad tihiin fiit, haddaad tihiin siid iyo haddaad tihiin guddiga xalinta khilaafaadka waajiba idinka saaran. xafiiskayga wuxuu u idmaday oo gooni haddana usii kor saaray haween ambassador ah, goodwill ambassadors oo qoondadaas ilaalinaya. waxay ku tusaysaa qoondadaas siday muhiimka dhankeena uga tahay dowlad ahaan iyo shacab ahaan iyo idinkana mas'uuliyadda idinka saaran. marka waa lakabyo ama leeyaro iskor saaran oo ilaalinaya qoondada dumarka ee 30%, waana lama taabtaan. saad la socotaan awoodaha siid iyo guddiga khilaafaadka waa caddahay, wax mugdi ku jiro ma ahan. hal sharci oo baarlamaanka soo maray ayaa jiro oo la yiraahdo September 17. wixii ka soo hara waa habraaca ku xigo ayuu kabayaa, mid laga tagay ma jiro. guddiga fiid caddayntiisa waajibaadkiisa wuxuu ku yaalaa habraacii ugu horreeyey ee September 17 kadib la soo saaro ah 1 October ku yaala waa 18 qodob Soomaan waa sideedii loogu dhaqmayaa, wax buriye ma lahan. sida ku soo hartay meesha ku qoran tahay waxa ku soo hartay cid taabatay ma lahan. qodobadeedana meesha ku yaalaan iyo waajibaadka qofka siidka ee saaran. waxa ku soo haray guddiga xalinta khilaafaadka. waan arkaa dad iska dacwoonaya ama dad maxaa la yiraahdaa dhibaato sheeganayo waa inay soo maraan guddiga xalinta khilaafaadka. siidna ma soo qaylin karto oo dacwo ma soo gudbin karto, fiidna looma soo gudbin karo. dacwada waa inay ka soo bilowdaa structure leedahay. qof kasto haddaan lagu tixgelin structure-kiisa iyo job description-kiisa ama waajibaadka qofkaas ama tiimkaas saaran kan kalena ma tixgelinayo. waa waxa hadda keenay isfaham darrooyinka marar dhaco Soomaan. marka waxaa idinka rabaa waajibna ah inaad gudataanna ah in ay halkan ku caddahay tiim kasto haddii aan lahayd khilaafaadka xalinta khilaafaadka guddiga xalinta khilaafaadka, haddii aan lahayd siid iyo hay-addii ugu sarreysa oo ah doorashada ee fiidka oo heer federaal ama dowladda dhexe, in structure-kaasi la isku tixgeliyo waayo. haddii aan wada shaqayn dhicin madasha qaranka waa madasha ugu sarreyso ee dalkan, doorashada ra'iisul wasaarahana madax u ah. waa soo fargelinaynaa, go-aanka ugu cad ayaana ka qaadanaynaa. laakiin waxaa ka fiican, waxaasna ka wanaagsan tababarro laidin siiyey idinkoo og waajibaadkiina inaad gacmaha isqabsataan, doorashadana aan ka wada gudubno. waxaan kaloo idiin sheegayaa mar kasta challenge ama caqabad way imaanaysaa intii doorashada socotay. waxaa noo joogo khubaro ka soo shaqaysay doorashadii 2016 oo ugu horeeyo Abukaat Cumar. wixii soo kordho hadday ka bilaabato guddiga xalinta khilaafaadka ama siid ama fiid ha la soo gudbiyo. waxaa waajib aan iga saaran yahay haddaan markaas la xallin karo inaan xallinno, haddii aan la xallin waayna aan u yeerto madasha wadatashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa xallinaya. waajib idin saaran maahan haddii caqabado adag oo la xallin waayo yimaadaan. qaarkoodna waxaa laga yaabaa inaad ku filantihiin oo aad xallisan kartaan. waa jaranjaro isku soo xigta. marka waxba culays hayse saarina, waxba maxaa la dhahaa dhibaato aan loo baahnayn dusha ha u ridanina. wixii idin yimaado soo gudbiya oo culays ah waa idinla xallinaynaa. annagoo wada jirno ayaan toos wada xallinaynaa. waxaan rabaa
inaan halkan idinkaga caddeeyo September October koodeedii inuu ay ku qoran tahay September 17keeda in dokumentiya la raacayo oo ay ka bilaabanayso originka koowaad oo ah oo mas'uuliyadda koowaad ay ku soo dhacayso teamka FID ra'iisul wasaaraha markay doorashadan uu mas'uulka ka yahay ee ka soo gudubto wax kasta waxa mas'uulka ah hawsha teamka FID oo ah heer federaal oo diyaarinayo all documentiska laga rabo xildhibaanka all maxaa la yiraahdaa warqadaha loo marayo warqadaha la saxiixayo foomamka la buuxinayo isagoo la tashanayo tababarna loogu bixinayo dhammaan teamka ku xigo ee hoose ee ka shaqeynaya dowlad goboleedyada oo sidka ah haddaysan maxaa la dhahaa uniform ahayn doorashadaas ma soconayso sid iska samaysan karo ama Jubbaland ha ahaado ama South West ha ahaado ama Galmudug ha ahaado ama Puntland ha ahaado ama Hirshabelle ha ahaado intuu iska baxo warqado iska daabacanayo loogadiis isku dhagsanayo ma dhacayso ansaxna ma ahan waana joojinaya wixii ka yimaadana sidkaas qaadaya ma maqlaysaan waxa waa inay uniform yihiin oo kor ka bilowdaan hoosna u dadegaan budgetka doorashada idin soo haray budgetka doorashada waa qondaynay FID ayaan hadda ku wareejinay wixii soo kordho iyo miisaaniyadaas iyo gudbinteeda iyo habraaceeda FID ayaa mas'uulka ah FID anigay noo soo gudbinaysaa haddii caqabad qabsato lacagta ma ku filnaanayso waa wax cad wixii caqabada ah soo kordho hadda waxaan haysanaa 26 milyan aan qorsheynay laakiin maalinba waxba soo baxay Soomaan waxa soo baxday in waxaan ay ka badan yihiin 26 milyan aan qorsheynay waxa loo baahan yahay qofna intuu warqad iska qorto donors iskama aadi karo ama SID ha aado ama guddiga xalinta khilaafaadka ama hay'adda idinkugu sareyso FID ka ahaato iskama bixi karto waa inay fadhiistaan idin la fariistaan hadday tahay SID iyo khilaafaadka isla xalisaan budgetkaas sababtoo ah budgetka ay FID go'aaminayso waa budget ay u daadejinayso SIDka cidda ku shaqeynaysa yaa waay SIDka Soomaan haddii aysan isla waafaqsaneen meeshaas gaaba ka imaanayo mas'uuliyaddeedana waxa qaadayo ciddii kaliya jaabka gashato waxaan waa wax collective ah oo la wada leeyahay waa mas'uuliyad guud waxa dhacayso lacagahaas inay yar yihiin sida haddaba muuqato waa noo soo gudbinayaan xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo isagoo liido ah madasha wada tashiga qaranka ah weekly ama labada week waas update gareena weekly ama u hadalnaaba anaga hatta ka yaraan u hadalnaayo daily wixii soo kordha waa ka wada hadalnaa madasha waa ka wada hadalnaa wax kastoo soo kordho waxa aad noo soo gudbisaan waa ka tashanaa anigaana liid u ah annaga laakiin waxaan diyaar u nahay inaan si wada jir ah u wada xallino waxaan rabaa oo halkan ka cadeynayaa isha idinku hayaa wada shaqeyn xumo uma dul qaadan karno wada shaqeyn iyo gacmo isqabsi iyo wada jir ayaa mas'uuliyad iga saaran tahay aan u dul qaadanaya waxaan rabaa guddiga FID uu hogaaminayo gudoomiye Ciro waa gudoomiyaha ugu sareeyo ee guddiga doorashooyinka hal is ixtiraamo hal kala dambeeyo waxyaabaha kala shakiga ah ama kala tuhunka ah ama hor u dhacay ama waxa la dhalay waa in laga noqdaa hore loo socdaa new page waa in la furtaa waa in la wada shaqeeyaa habraaci ugu dambeeyo soo baxay 24 waa kamilaad ma ahan mid gubayo wixii hore oo dhan hal sharciya jiraba sideedaba oo ah September 17 inta kale waa habraacyo waxa laga yaabaa berri caqabada inay dhaxdiina aad noo soo sheegtaan cusub 24 hadda ugu dambeysay August waa u yeeraya waa fariisanaynaa wixii cusbayaan wax ku dareynaa Soomaan habraac cusub muxuu noqonayaa kamilaya kuwii hore marka macnaheedu maahan kii hore waa la nasakh kitaab maahan waxan waa wax annaga aan ku socono oo talaabadii hore lagu kamilayo ee wax buriyay ama burinayna ma jiro marka saas ula socda kala dambeynta ani ugu daran oo waajibiga saaray hadafkeygana waa iyo dhammaan hadafka madashana waa inay doorasho ku dhacdo waxaan rabaa maanta waa talaada Soomaan waxa haysataan maanta bariyo Arbaca ah waxaan jeclahay Khamiista ugu dambeys update-ka jadwalka oo activity-ga next week ka bilaabanayo inaan gudbiyo doorashadii phase-kii labaad waa inuu bilowdaa wixii insha Allah subhanahu wa ta'ala waa ku mahadsantahay
sabtiga wixii ka bilowdo waa inay activity-ooyinka bilowdaan diyaarinteedii ya waa la kulmay dhammaan all stakeholderska dadka ay qusayso doorashooyinka oo dalka ah dhammaan waa la kulmay shalay ugu dambeysay waxaan la kulmay madasha oo musharaxiinta Soomaaliya waa la kulmay cabashooyin ay soo gudbiyeen oo in la kala argareeyo ah waxa ugu muhiimsan duubabka odayaasha dhaqanka in la cadeeyo ma mawliida ma xiisa waa in la cadeeyaa oo tababarka lagu cadeeyaa shacabka Soomaaliyeed wuxuu naga rabaa doorasho hufan oo cad oo sidii nal muraayad oo kale isaga dhex jeedo ayuu shacabka naga rabaa annagana sidaas aan ugu shaqaynaynaa anigana garbahayga tihiin waa inay doorashada noo noqotaa doorasho hufan oo aan laab lahayn mugdi aysan ku jirin oo anigana waa iga go'an tahay dad baa ila kaftamo waxay dhaheen madasha waa israacdeen oo madaxweynenima waxba ma rajaynaysaa dalbanaysaa weli shacabka u cadeeyaayo doorashadan mas'uuliyaddeeda waxaan u qaaday sidii ilaahay og yahay musharax miihi mana raadinayo waana iga go'an tahay qalbigiina khayr u sheega waxaan intaas u sameeyay inay doorashadan si transparency ah ay ku dhacdo doorashadan aqalka hoose waa xasaasi waxaan rabnaa idinkana idin sheegayaa dowlad goboleedyadana u sheegayaa saaxiibaday inay ahaato transparency cidna kama yeelayno hadday laab gasho way fahmaysiin Soomaali waxa waa inay cadaadaan fariintaas waa inay qof kasta oo Soomaali ay gaartaa waa in qof kasta oo kursigaas musharax ah dan ay kaga jirto oo cawada ku seexdaa inuu kursigaas si xaq ah xalaal ah u raadsado qofna aysan hor istaagi karin waxaan rabaa arrin kale oo tuhun ah oo ay keentay gudiyada ama musharaxa ama 101 CID ma marayaan CID-da waajib waa in la maro hay'adda dambi baarista waajib waa in la maro dalka xaaladdu ku jiro waa la socotaan Soomaali inteenaan meesha joogto haddaysan marin dambi baarista ama CID shaqo ma helayso waa in la baaraa waa waajib muwaadinka Soomaaliyeed saaran hay'adda isbaarana ma noqon karto taas ay idin sheegayaan way igala dardaarmeen way iga codsadeen musharaxiinta arrintaas tuhni ka muujiyaan in aan loo isticmaalin musharax A musharax B musharax C Ali Jaamac Faarax in aan loogu kala dhigan caqabado ishan ku haynaynaa idinkana isha waa ku haysaan ku seexda intaan joogno insha Allah annaga waxaan ka cabsanaynaa inuusan na soo gaarin fariintiina laakiin diyaar ayaan u ahay ka ra'iisul wasaare ahaan ka mas'uuliyad ahaan doorashada gudiyada in qofkii cabasho ka keeno aan u istaajino oo hay'addaas hadday isku daydo in loo maro qofkaas laga celiyo xaqiisana uu helo insha Allah waa ku guuleysanaynaa annagoo garba haysaysanno idinka laakiin waxaa idinka rabaa maalin kastoo shaydaanka waxbuuna tusaa Soomaali nuh ma dhammaanayso nadiif ahaada hoteelaad degantihiin mas'uuliyadda aniga iga saaran hoteelaadka aad degantihiin inaan isha idinku hayo dhaqdhaqaaqiina isha ku hayo dhibka idin soo gaaraya isha idinku hayo Soomaali taxadara idinku hayntaas ayaa waxay keenaysaa in qaarkiin aan dhaho hebel uu la kulmay hebel uu la kulmay meeshaas uu joogo dad buu isku daba ridanay yaan la maqlin waxa soo hartay walaalaheen Somaliland senatorada iyo xildhibaanada Somaliland sida senatorada iyo xildhibaanada kale ayay xaq u leeyihiin inay doorashadooda ay u galaan sida ugu cadaaladsan habraaci ugu dambeeyay wuxuu dhigayaa liiska musharaxiinta aqalka sare waxa si wada jir ah u soo xulaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxaana ka hubinaya anaa ka hubinayo inaan la shaqeeyo diyaar u ahay wayna ii sameyn yihiin sidaan hadda idin sheegay horan idinkugu sheegay si lamid ah ayay labadooda iigu sameyn yihiin si cadaalad ah ayay u soo xulayaan si cadaalad ayaan uga hubinayaa iyagana qalbigooda waxaan u sheegayaa inay wanaajiyaan ka shaqeeyaan horumarinta is-aaminaadda iyo inay doorashada ku dhacdo si hufnaan ah cid dhacayso ama group dhacayana inuusan jiran ayaa halkan ka cadaynayaa
sidaa halkan ku cad xildhibaanada aqalka sare ee Somaliland waxaa dooranaya 46 xubnood 23 xubnood oo ah odayaasha dhaqanka ee Somaliland Soomahan iyo 23 xubnood oo ka imaanaya qaybaha kala duwan ee bulshada aqalka hoose ee Somaliland wuxuu la mid yahay sida habraacyada aqalka hoose ee dowlad goboleedyada ayuu raacaya waa waadix waay walaalayaalow mas'uuliyadda gacmihiina ku jirtaa anigana ninka idinku controlaya aan ra'iisul wasaaraha idinku jeegareynaya oo kor idinka ilaalinaya ayaan ahay shaqeeya si hufan u shaqeeya gacmaha isqabsada meeshan dheef hoose oo nin gaar ah wax uu helayna ma ku jirto waxaan rabaa inaad u aragtaan waajibaadkaasna qofna kaligiis iyo isku kala yeelin oo dhabarka saaranne hala qaybsado walaalihiis ya kooxda kale